madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo 12 sano ka badan uu hogaaminayay maamulkaasi Jubbaland shalay mar kale isku caanshuray magaalada Kismaayo doorasho ka dhacday oo hal dhinac oo kaliya ahayd ayaa waxaa ka soo baxay dhankiisa hanjabaad xoogan oo u jeediyay mucaaradka kula sugan magaalada Kismaayo ee madaxtinimada Jubbaland hamiga uga jiray iyo silmada dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa hadalka halkaas ka jeediyay waxaa loo fasirtay inuu u dhigmo hadal uu ku muujinayo in duulaan dagaal uu ku qaadi doono musharaxiinta dhankooda madaxweynaha ku dhawaaqay ee magaalada Kismaayo kula sugan sidii 2013 oo kale ka dhacday gudaha magaalada Kismaayo. haddaba madaxweynuhu waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra'iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro. waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare Xamsow waxaan waa taariikh berri bay qodi doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dagaalama burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay kuwa kaa awood badan baa isku dayay dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhaya lahaa sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay mana dhacayso qof Soomaaliya intii loo yeedho inay cid kale intay u hajabto ay u dhigteed garayso ma dhacayso dib ha loogu noqdo wada hadal baan diyaar u nahay aan wada xaajoonno aan isu nimaadno laakiin ha laga daayo warwareegga lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne ka amnigan ciidanka amniga gacanta u hay ciidan kalena ma jiro sidaa awgeed waan hadalkaygu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro weli kama tegin soomaalinimo waxaan dowlado ka diiday soomaalinimaan ku oggola waxaan cid kale ka diiday soomaalinimaan ku oggola war miis Soomaaliyeed aan ku wada hadalno waddankana horey buu rabaa inuu socdo dib ha u celin. hadalka Axmed Madoobe marka laga yimaado dowladda federaalka dhankeeda waxaa ciidan xoogan ay ku daabushay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan deegaanka Raaskambooni iyo degmada Badhaadhe. ciidanka halkaas lagu daabulay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa xiisad dagaal ka horin kara deegaanada Jubbaland waxaana hadda laga sheegayaa inuu socdo diyaargarow xoogan oo Jubbaland ay ku doonayso iyo silmada Axmed Madoobe in ciidankaasi federaalka ay kaga hortagaan ayagoo horeba ugu tilmaamay in ciidan beeleed halkaas lagu soo aruuriyay. kulanka golaha wasiirada xalay ay ka yeesheen xaaladda Jubbaland ayaa loo arkaa sidoo kale mid ka sii dari kara oo xaaladda Jubbaland dab ku sii shubi kara. golaha wasiirada kulanka xalay yeesheen waxay ka soo saareen 2 qodob oo mid ka mid ahaa inaan la aqoonsanayn doorashadii ka dhacday Jubbaland ee Axmed Madoobe uu ku soo baxay iyo golihii halka looga dhawaaqay baarlamaanka ee asaga doortay. sidoo kale golaha wasiirada ayaa ka dalbaday galyaqaanka guud ee dowladda inuu dambi ku soo ogo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shalay isku doortay Kismaayo sidoo kale tana sheegay inuu wada hadal diyaar u yahay. golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee Jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 55 iyo qodobka 56 ee sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka beddelka cutubyada 1, 2, 3 iyo 4 ee dastuurka isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. 2 golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in dhammaan talaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka Jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka beddelka cutubyada 1, 2, 3 iyo 4 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hogaamiyihii hore ee Jubbaland. hanaanka uu hogaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay.
isdoorashada guddoon baalmarsan sharciga oo uu soo xushay hogaamiyihii hore ee Jubbaland isdoorashada hogaamiyihii hore ee Jubbaland saddex goluhu haddaba waxa uu farayaa gariiqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu si degdeg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan talaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha marka loo eego hanjabaadda Axmed Madoobe ee la xiriirta inaanay jirin cid kale oo deegaanada Jubbaland sheegan karta madaxweyne ama mucaarad ka noqon karta iyo dalabka golaha wasiirada ee la xiriireen dambi lagu soo Axmed Madoobe waxaa laga bixinayaa saadaal kala duwan taas oo badankeeda xoogga saaraysa inay keeni karto dagaal xoogan oo dowladda federaalka iyo salamada Jubbaland dhex mara dowladda Soomaaliya waxaa inta badan falaqayaashu ay leeyihiin uma suurtageli karto in Axmed Madoobe inta soo qabtaan ay soo xiraan maadaama ciidan xoogan ay ku hareeraysan yihiin deegaanada hadda uu ka taliyana dowladda federaalka deegaan ahaan aysan tegi karin ilaa ay ku tagto ciidan xoogan oo dagaal ay halkaas kula gasho dhanka kale dowladdu waxay furi kartaa maxkamad sida laga dalbagalay qaanka guud ee dowladda taasoo ah maxkamad hal dhinaca oo Axmed Madoobe aanu iska difaaci karin taasoo xukunna ku soo rogi karta hase haatee xukunka Axmed Madoobe la saaro waxa uu tusaale xoogan u yahay madaxda kale ee mucaaradka ee dowlad goboleedyada iyo salamada mucaarad kale ee dowladda ay leedahay taasoo muuqan karta in dowladdu maadaama garsoorkeedu gacanta ku hayso ay u adeegsanayso inay ku caburiso mucaaradkeeda iyo cid kasta oo ka aragti duwan haddii ay timaado arrinta in Axmed Madoobe maxkamad lagu furo sidaasna dowladdu ay xukun hal dhinaca oo aanu iska difaacin ay ku saarto waxaa soo bixi kara in Puntland iyo deegaano kale sidoo kaleeto maanta culayska ka jira uu sii fogaado sidoo kale Axmed Madoobe wadahadalku ku baaqay dowladda inuu la geli doono meesha ayuu ka bixi doonaa waxaana noqon karaa waxa Axmed Madoobe iyo dowladdu isku wajahaan oo kaliya inay noqoto dagaal ay isaga yimaadaan laba saf wada shaqayntii iyo wadahadalkiina halkaas ayuu ka bixi karaa xaaladda cusub ee xilligan ka soo korotay go'aanka golaha wasiirada iyo doorashada Axmed Madoobe waxaa loo arkaa inay tahay xaalad khatar ah oo Soomaaliya gelin karta hubinti la'aan kale dibna ugu celin karta xaaladii dagaalada iyo sabqabsigii xooganaa ee Soomaaliya loo arkay in xilligan horumar ka sameyn karto noqon karto dowlad isku filan kheyraadkeeda la soo baxda amnigeedana sugan karta